هنا إذاعة القرآن الكريم، نحن معكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxyaalaha aan ka hadli doono waxaa ugu muhiimsan sidee fasal loo maamulaa maareynta fasalka ayadana waa mushkilad taagan mar kastana na haysato way xalna u baahan macallimiintuna ay ku kala duwan yihiin. aan ku bilowno maareynta fasalka sidee fasal loo maareeyaa. marka laga hadlayo maareynta fasalka dhowr arrimood aan ka fiirino dowrarka ay ku leeyihiin qoolo walba kaalinteeda. macallinku muxuu kaalin ku leeyahay maamulka fasalka, ardayga muxuu kaalin ku leeyahay, maamulku muxuu kaalin ku leeyahay, deegaanka iyo fasalka iyo maxay kaalin ku leeyihiin, iskuulka suu yahay. intaba marka qoolo walbana ha qaadato xilkeeda iyo mas'uuliyadda ay leedahay. waa loo kala tegi waayo macallin iyo fasal iyo macallin maamul shaqo kuma leh. adaa iskale fasalka, adaa maamula. wixii dheeriyo lagu saacideeyo waa shay, laakiin fasalkaas 45 daqiiqo xisada ah ama 40 daqiiqo dheh waxay noqoto iyo xisad kale hadaa ku jirto fasalkaas adaa maamula. laba macallin isbabar dhig adiga midka aad tahayna fiiri. fasalaad ku jirtaa, fasalkaagu waa habaysan yahay, ardadu waa la socdaan casharka, waxaa ka socda nashaadaad. fasal ku xigana waa laga dhigan laaya marmar adaa aada macallin ma naga amsi ardada war kuwa arday fiican maaha, adiga kuwa fiican baa haysataa. hadhow xisadii waxaa dhacay jaraski waa la isbedelay, fasal kala tagtay, fasal kale waa degay, kii hadaa ay ka soo tagtay waa kacay dano macallinkii hadaa waa ku sidee hadaa kuwaas waa xumaayeen hadana kuwa waa sidee meeshaan ku arkay amba. marka waa la garan karaa meesha wax iska bedelayaan. fasal macallimiinta oo dhan waa ka qaylinaya, waxay leeyihiin fasalka fasal fiican maaha. laakiin hal macallin oo macallimiinta ka mid ah fasalkaas markuu galo shub waa la aaminsan yahay, casharka waa la dhiganayaa, waa la socdaa, waa la faraxsan yahay. macallimiinta kalena maya. oo muxuu ku akhriyay isagu? see wax loo maareeyo casharada. marka inta aadanba fasal cashar dhiginba waa in fasalku degan yahay. waxaaba dhahaanba cashar ha bilaabin ilaa fasalka uu ka dego. laa tabda darsa qabla an yasuuda nidaam. fasalka oo nidaam lahayn oon ardadu aysan diyaar u ahayn in wax loo sheego haddaa iska bilowdo dhibaatay noqonaysaa. maareynta waa habka la rabo in ujeedooyinkeeni waxbarasho ee aan diyaarsanay aan ku gaarno. ujeeddo waxbarasho aan diyaarsanay saakay waxaan u soo baxay ardada inaan shaygaa iyo shaygaas ku tababaro ama baro. marka dowrkeena macallinka, marka dowrkiisa macallinka muxuu noqonaa? maxaa dowrka keeni kara? meeshaan waxaa ku taala macallinku aan maadada aad u aqoon. war waxaas kor in loo sheego ma ahayne. warkaas macallinku aan maadada aad u aqoon kor baa loo sheegaa. ma jiraa macallin aan maadadiisa ka adkayn oo ardaduna ay ogaadeen inuusan maadada ka adkayn? wuxuu meesha la yimidba yaambadiisu af ma leh, yaambadii waxma faaskiisi wax ma taran, qalinkiisi ma qorna. macallin aan maadada aqoon ma jiraa? aan weydiiyey. ma aqoon ma dheheenno aan maadadiisa ka adkayn. aan sii fududayno macallin yaan ku rarnaanine miskiin baa miskala fuulale. macallin yaanan kale ku rarnaan aan ka dejinay. ma jiraa macallin casharka maalinta uu dhigayo oo aan aad u aqoon ama uu ka kala daadsan yahay? ma jiraa? soo ma dhici karto. hadhow aan niqaash badan furi doonaa, laakiin waxa kale iska daa. ani waxaan soo arkay macallimiin ayaa imtixaan ka qaadnay. imtixaanka laga qaaday culuum buu ahaa, science. ayaga science wax kama gelin, imtixaankay soo galeen. waxay dhaheen anaga waa science aan dhigaynaa, luqa alcarabiya ayuu ahaa macallinku. hadhow waxaa ku taalay علل ما يأتي كوا سو سocda sababee. waxa ku taala hadii qofka laga bixiyo caloosha uu noolaan karaa, laakiin hadii laga bixiyo mindhicirada ma noolaan karo. علل sababta sheeg. macallimiinta imtixaan gashay macallin kamid wuxuu yiri la cilata fihi. لا علة فيه تقوم مقام العلتين.
naxwihii macalinka hadduu fasalka ku soo baaso ama uu yimaado fasalkii oo science loo dhiibo hadda laa cilata fiihi wey ma dhihi karnaa macalinka keliya buugga ardayga bas akhriya oo wax kalo aanan dheeriya fiirin ardayduna ay buuggooda soo akhriyeen macalinkaasi waxbaa ka maqan wax dheeraad inuu soo akhriyaa ka maqan caalamka maanta waa furan yahay waa iska tuulo yar waxa aad dhigayso meelo badana ka fiirin kartaa haddaadan marka meelihii ka raaraabin su-aalaha dhow dhabku odhanaysa macalin aan aqaano saaxiibanoo fariida baa wadamadaas carabta ayuu wax ka dhiganayay markuu qalinjabin raba waxaa la geeyey tababar oo macalinnimo fasaluu soo galay wuxuu ka hadlay alismu ismu waxaa la dhahaa ismu insaanin ismu xayawaanin ismu jamaadin wa nabaatin magac dhirta kulli iyo xayawaano magacyadooda wey wagayra dalik wiil gadaal fadhiya gacan taagay macalin wagayra dalika maxaa ka mida haddaysan wagayra dalika loo diyaarsanayn haddii galaaska waa kala daadanaya wagayra dalika diyaarin bay rabtaa macalinka wuxuu yidhi wagayra dalika waxaa ka mid a kaljinni walmalaaikati jinka iyo malaaigta ku jira marka qaarkood waxyaalaha iyo wixii la mida etc waa inay meel kuu saaran tahay maya su-aal casharaa dhigtay macalinkii ardayga su-aal ku weydiiyey casharkaani magaalada muxuu ka taraa muxuu ani anfacayaa ibartaye waa inaan u sheegnaa maada kasta aan u dhigeenno faa'iide iyo wax ahli ka leedahay lagu dabaqo magaalada nolosha lagu dabaqo su-aal lagaa weydiiyey maxay nolosha iga tartaa haddaan dhahna biilkan ku saxanaa ka warrama tambiilkaa lagu saxaa marka macalinka maadadiisa inu yaqaan waa aragteena laba macalin oo kala duwan macalin maadada aada u yaqaana laakiin aan wax dhigidda ku fiicnayn macalin maadada hadda is leedahay wax badan ma yaqaano laakiin wax dhigidda aada ugu fiican labadaas macalin yaa soo baxaya meeshaan wax dhigidaa la rabay qofkan waa gaarsiinayaa ardadan waa qancinayaa laakiin maado badan arday waxay dhaheen macalin wax u dhigayey way ka soo dacwoodeen macalinkan waxba nooma maadada waa yaqaana laakiin waxba noo kama fahamno fasalkii la tagay waa fiirinay macalinku waxbaa sharxaya weli si aqoon sar u sharxaya markii ardada macalinku baxay ardada waxaan weydiinay maxaa ku haysataan mid baa wuxuu leeyahay maadada waa yaqaanaaye laakiin waa maktabad aan habaysnayn kulaha waa maktabad laakiin ma habaysna casharihiisu isku dhex darsan yihiin maalintaas waxa uu dhigaayo wixii shar uu dhigay kulliyo wax kaa weyn mid baa wuxuu leeyahay anoo biyo u baahan tuba biyo u baahan buu booyad afka igu shubaya weyn halkaas biyo marka haddii lagaa dareemo in maadada aadan ku fiicnayn wax yar la dareemo inaa meel ah qofaa wax yaqaana ardada ka mid a waa la isweydiinaya sidii hore maaha inta radka lagta la galaa lasoo fiirinaya waa lagu weydiinayaa markaas macnaheeduna ma ah inaan wax walba naqaano oo wixii la dhihi jiray afarta madhab buu ka jawaabaa annaga ma ahin wax walba naqaano laakiin waxaan nahay dad wax baranaya waxay yaqaanaanna yaqaana waxaysan aqoonna yaqaana baan nahay annaga waa noo kala caddahay waxaan naqaano waa naqaan waxaana aqoonna waa naqaan in aanan aqoon waa noo kala saaranta marka waxaan naqaano waa naqaan waxaana aqoonna waa naqaan iyagana labadaa noo kala duwan yihiin marka hadhow haddii la weydiiye waa kala su-aasha lagu weydiiyey oo aada garan weysay maxaa la samaynaya su-aasha lagu weydiiyey waa kuu bixi weyse waa garan weyse ama waa kaa hoos baxday ma aqaano maceebbaa waa soo baarayaa maceebbaa yaa kaloo yaqaanoo sheegaya maceebbaa waxaa ceebaan u malaynayaa inaan giirka iska kicinno oon libaaxyeyno oo aan iska dhigno maaragtay ardada ku kacdho waana kaa caddahay adiga waa iska mar waa dhici kartaa waana soo martaa annaga ma aadan aqoon
yaa roon in ardada inaan been u sheegna been dhamaatay internetka lagala soo baxay waxa dhan wax la sheegay ma marka ugu runta macallin baa wuxuu leeyahay anigu saan ceeb u dareemin oo aanan u dareemin ceeb u dareemin in ceebeysnahay waa iskuuleynaya ma waxaasoo kala garan weyseen ma maanta maqlay waxaas ma naqaan meeqa sana wax idin dhigay berri qofka aan keenin say u taala ogow kuwa berri loo diray ku jirtaa saas maaha kuwa berri loo diray yaa ku jirtaa marka waxaa laga rabaa berri inaad raadiso qaarab mar soo wac gobol la jooga macallin ilmahan wax u diray shalay bal maanta su'aashaas aan igu dhaganay bal ii soo sheeg macallinka waa weysay aad raadisay su'aashiina waa soo weysay berrina waa lagu sugayaa xagee wax ka bilaabmay meel waxa haysa malaha waa su'aal iska xoogaa ka duwanaatay waxaan sameynaa macallinkii dabcan wuxuu leeyahay umayna markaas oo kale haddaan ahaan lahaa madaxa soo xanuunaya meelahan dhag maamulahan wacaya maamule maanta si baan ahay madaxa laga hayaa ma imaan karo meel laga haya ma jirto su'aasha laga hayaa waxaasoo dhan wax dhibaato ma leh haddii la yidhaaho la soo baaro wax ceebay leedahay ma jiro awalna su'aalo hoosoo ilmo yaryara waa taqaanay weli ilmaha yarka qaarka su'aalo kulul baa jira hadday weynaadaanna ay ku weydiiyaan ha bartaan dadku inaysan wax kasta aqoon macallinka xataa macallinku wax kasta ma yaqaan marka nebigu calayhi salaam wuxuu leeyahay mal mas'uulu canha biaclama min asaa'il nebiga oranaya waxa la weydiiyey kaama badiyo ani adiga kaama badiyo marka wax dhib ma leh macallinku ma aha inuu meeshiisa laga sara mariyo laakiin waa inaan maadadeeda aqaana diyaariya casharo badan ka diyaariya kuwa qodobka labaad waxa waa macallinku waa yaqaanay laakiin maadada ma gaarsiin karo sidii la rabay maadada waa taqaanaa laakiin sidii laga rabay ma gaarsiin karto